السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا كوبعية سوفتوير alaabad ka barateen koorsooyin kala duwan. Kooraskeenii QuickBooks 2016 ayaa noo socday. Wuxuu casharkan ku saabsan yahay import items from Excel to QuickBooks. Items-ka kasoo qaad markaad QuickBooks aad productiga diiwaangelinaysid, waxay qaadanaysaa hadda kasoo qaad productigu fara badan yahay diiwaangelinaysid. time fara badan bay ku qaadanaysaa inaad diiwaangelisid, laakiin Excel-ka ayaa ka fudud inaad marka hore kusoo qoratid then aad ku bastigaraysid QuickBooks sida si fudud aad productigii fara badnaa aad diiwaangelinaysid ugu diiwaangelisid. Marka casharkani wuxuu ku saabsan yahay sidaas aad u diiwaangelin Excel-ka intaad ku diiwaangashatid hadawna QuickBooks aad ku bastigareeyay. Casharkani intaas ku saabsan yahay kusoo dhawaada dhinaca practical-ka. marka dhinaca practical-ka uu soo leexano si aad u diiwaangelisid from Excel, marka ugu horeysa Excel-kaaga waa soo furanaysaa QuickBooks-kaaga waa furanaysaa. marka waxaad tagaysaa lists, item list aad ka weynaysiisto. halka ugu hooseeya waxaad ku aragtaa Excel, waxaad dooranaysaa paste from Excel-ka kasoo bastigaray. marka waad iska sugaysaa inta uu ku soo baxayo. marka uu noo soo baxo ka noo soo baxay hadda isku hagaajiyay. marka inventory party waa dhinaca inventory-ga. marka waxaad soo qoranaysaa titaladan halkan item name-ka baad ku bastigaray baad ku soo qoranaysaa Excel-ka ku tuso. waniga sidan ugu soo qortay waxaad qoranaysaa item-ka, sub item, cost, sales price, cost of goods sold, preferred vendor. intan oo dhan ma soo qoratay. datadan intan dhexe qaybtan dhexe baa lagaaga baahan yahay. qaybta dhexe aan highlight gareeyay baa lagaaga baahan yahay inaad qortid. marka alaabtiisa soo diiwaangelinaysaa saas price-kooda cost-kii kugu jooga halkaas qoysa $4, price-ka aad siinaysaa waa $6. marka waa bugaag kuwaasi. halkan waa computer 250 buu kugu joogaa, wax siinaysaa $300. marka inta masaab ma soo qoratay halkan soo raacaysaa alaabta on hand. halkaasi waa alaabta gacanta ku taala ama bakharka ku taala. imsa ku yaala ka 60 kana 10 kana waxay qabo totalkoodi. totalku wax kala kama iman 60 kaas uu ku dhiftay cost-ka uu kugu joogo. marka item-ska aad soo qoratid aad soo qoratid copy baan nahay halkaas ka soo copy garanaya. copy ma yiri then QuickBooks ayaan ku soo noqonayaa. halkaasaan right click siinaya banaan paste baan nahay. waka hadda alaabihii cost-koodii waxay ugu joogeen saasaan u diiwaangeliyay. then waxaan dhahayaa save changes baan dhahayaa. marka wuxuu leeyahay laba item baan kusoo daray. yes ha labada item markii dhaweed Excel ka soo kobiyay kusoo daray. marka waa labada item waxay kala yihiin bugaag iyo computer. aan ka dhaxeego kuwaygi wakan bugaagtii waka inta sanaya computer-kiina waka saasa lagu diiwaangeliyaa adoo Excel isticmaalaya inaad ku bastigaraysid QuickBooks. asxaabay casharkeena intaas ku soo gabagabeynaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.